Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Higgs Technology iyo tutorialkan aga hadlaynay Adobe InDesign. Maanta hadduu alla idmo waxaan ku sharaxi doonaa oo aan qaadan doonaa sida loogu sameeyo leaf light adigoo isticmaalaysid Adobe InDesign. Waxaan rajaynayaa in uu ka fududaan doono boqolkiiba boqol Photoshopka oo aan loogu talagelin in lagu sameeyo leaf light. Waa lagu sameyn karaa laakiin midka kan aad hadda haysatid ayaa boqolkiiba boqol ka fudud Photoshopka. Markaad joogtid Adobe InDesign waxaad leedahay file kadibna new si aad u furatid project cusub. Haddii aad documentigaaga adi abuuranaysid new dheh kadibna waxaad dhahdaa document. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa control N. Kadib waxaa heli doontaa dialog boxkan ama boxkan yar. Kadib magaca meesha detailska aad ku qoraysid ayaa magaca ka bedelaysaa. Waxaa ku qoraysaa magaca aad rabtid. Kadib halkan ayaa u imaanaysaa meesha unitka ku qoran tahay cabirka millimeter iyo centimeterada nooca rabta ka dhigaysaa. Kadibna A4 size ayaa dooranaysaa. Widthka waxaan ka dooranayaa 210. High-gana waxaan ka dhigayaa 297 balse orientation-ka markaa imaado oo aa imaado portalka warqadaada portal maa ka dhigaa tag maa ka dhigaa mise waxaan ka dhigaa jiif oo waxaan ka dhigaa landscape. Waxaan dooranayaa landscape. Sidoo kale pageska meeqa page ayaan rabtaa? Waxaan rabaa hal page. Ama marka aad rabtid adiga inaad sameysid 2 pages kaba soo qaad leaflet-ka oo isku laamaysaa maadaama ay isku laamayso waxaa ka dhigaysaa 2 page. Page-ka hore iyo page-ka dambe sida printerada caadiga ah isticmaalaan. Laakiin tutorial-kayga hal page ka mid ayaan ku sharaxi doonaa. Page-ka haddaa sameeyo page kale waa sameyn kartaa. So hal page ayaan sameynayaa. Page-ka labaadna waa ku koobiyeynayaa hadhow. Laakiin halkan waxaan ka dhiganayaa 2 pages. Meeshan hoose ayaa ku soo harta oo column-ka ay ku qoran tahay. Column-kan waa very important. Waa midka kugu xadidaya cabirada warqadaada dhexdeeda. Maadaama warqadaada 3 mar ay isku laamayso meesha ay ka laamayso waa ninka sameynaya waaye. Column meeqa column aan rabaa? Waxaan rabaa warqadii 3 mar inay isku laamato. So 3 ayaan ka dhigayaa. Inta kale margin ayaa jiro plain ma galayna maanta create ayaa leedahay. Marka warqadaada sidaan u heshid waxaa haysataa sida u jeedid meeshan cabiro kala go'an oo 3 xaba ah. 2 pages way ku yihiin oo page-ka labaad hoos ayuu ku jiraa waa kana. Page-ka koowaadna waa kana. Then hadda shaqadeena ayaa bilaabanayna leaflet-keena design garan. Leaflet-kii page-ku qaybta ugu horeyso ayaan rabaa inaan design gareeyo page-ka ugu horeeyo. So sida idiin sheegay kan balkan waa mid ka mid ah frame-yo ma ahan frame-ka rectangle-rada caadiga ahaa laakiin waxaa loo isticmaalaa in shape-ka sawirka uu meesha ku hayo yani. For example haddaa hadda doorto kan waan dhaho waxaan rabaa inaan inta soo geliyo sawir. Qaybtaas hore ayaan rabaa inaan page-kaas ugu horeyso inaan sawir ka dhigo camal. Ama waxaad dooranayaa labada page ugu dambeysa ayaa sawir ka dhigayaa. Sidaas markaa sameysid oo kan aad ku drag u gareysid waxaad leedahay halkan ayaa aadaysaa file kadibna replace. Kadibna aniga sawir aan rabo ayaa jiro meesha inaan soo geliyo kadib waa dooranayaa. Waa kana sawirkan weeyaan. Sidaan markaa sawir u soo geliyo waxaan rabaa inaan opacity ka yareeyo. Okay. Sorry. Marka opacity sidaas aga yareeyo waxaan rabaa inaan sameeyo page-kan koowaad. Page-kan koowaad markaan sameynayo rectangle tool qaadanaya all color ka dhigaya. Kadib midabka meeshan ayaa laga bedelaa
frameka waxa ujeedaan midab ayuu leeyahay. Frameka waa uu kala wareejinaya sida illustrator oo kale. illustrator oo kale ayaa kala wareejinaya, kadib midabka ayaa ka bedelaya. midabka rabo ayaan saaranayaa. For example kan oo kale aan saaray, waa soo dhaweeyay colorkan qaybtan. haddaa doono all ayaa korka ka saari karaa si aan wax yar opacity-ga u yareyn karo ayaan ka dhigayaa. Okay, sidaas markaan ka dhigo, qaybtan sawir igu jiro, qaybtan sawir ku jiro. Okay, waxaan rabaa inaad text doorto. text ayaa ku dhufanayaa, inta ayaa imaanaya. marka waxaad dareemaysaa xoogaa inuu sawirka textiga wax dhex galayaan, laakiin geeska kasoo bilaabaya sawir textiga markaa ku qoraysid Adobe InDesign wax yar. Adobe InDesign markaa sawir ku qoraysid, wax ku qoraysid text, waxaa lagaa rabaa inaad calaamadaysid intuu textiga ku noqonayo from here to here in camal aad dhahay. saas aad u jiidid textiga adoo haysid geeska. haddii kale textigaaga wuxuu noqonayaa wuu qarsoomayaa. Okay, waxaan rabaa inaan ku qoro inta who we are, kadib what we do. labada su'aal ku qoro meeshaas. kadib waxaa sameynayaa meeshan ayaa laga textiga kor ayuu ku qoran yahay, meesha laga weyneeyo ma u baahan meel kale inaad aadid. then waxaa kaloo aadaysaa halkan oo ah paragraph design-ka. kadib waxaad dooranaysaa alignment to the left. kadib colorka ayaa inta ka bedelaysaa, meesha state ay ku qoran tahay laga bedelaa colorka. waxaad dooranayaa like this oo kale hadduu kusoo baxayo tijaaminayaa. then waxaa sameynayaa waa guurinayaa. Okay, textiga haddaa u baahdo inaan wax ka yareeyo waa yareyn karaa, oo kaba soo qaad waxaa ka dhigayaa 65. okay, intana farta waa ka bedelayaa. farta aniga aan taageero ayaan kasoo dhigayaa. okay, still wax yara ee khaldan oo ah background-kan hoose inaa sidiisa hore kusoo celiyo. dhibkaas yarka ay haysto. waxaan rabaa inaan aado meesha laga bedelo opacity-giisa ka dhigo. fartana colorkeeda aan white ka dhigo. double click ku dheh farta white igu celi. halkan farta waxaa moodaa inay banaanka u baxsan tahay, waa yareynayaa. waxaa ka dhigayaa 30 ama for example waxaa ka dhigayaa 40. okay, tanna waa soo jiidayaa, gudaha usoo xareynaya. okay, sidoo kale tan sidan ayaa ka dhigayaa. okay, tanna sidan ayaan ka dhigayaa. waa ujeedaan hoos ay gashay. markaas ay hoos gasho waxaa sameynaysaa select toolka qaadanaysaa, waa jiidaysaa. kadib calaamad su'aalna intaa kusoo binaysaa. okay, waan gartay. kadib loogada ayaa soo gelinayaa. file replace loogadeeda intay taalay, meeshay taalaa tagaa, waa soo gelinayaa. for example looga oo higsi haystay. inaad ku jiidida u baahan tahay meesha dhigaysta. okay, halkaa markaa sidaa u dhigtid, waxaa kaloo sameyn kartaa paint toolkaa tegaysaa. halkan ayaa waxaa ka dhigaysaa paint tool. kadib drag noocaasaad jiidaysaa. waa in yaroo design ku darayaa. kadib paint toolka sida ogaan jirta sidii aad ku jiraysaa ilaa angle ay ka noqonayso. kadib intaa keenaysaa, waa isku xiraysaa. kadib eye drop ayaa keyboard taabanaysaa, colorka kana ka dooranaysaa. okay, intaas markaa sameysid
qaybtan kale kusoo hartay. Qaybtan kale intan qaybtan waa qayb, qaybtan waa qayb, qaybta saddexaadna waa qayb. Marka waxaa rabaa ku qoranaya. For example, waxaa ku qoranaya waxyaabaad aad jeclahay. Text badan ku qoraya kasoo qaad ama contact as ku qoraya. Rectangle tool tagaya, waxaan soo dhiganayaa rectangle geesiis waa bedeli karaa, inta ka bedeli karaa geesiis. Round ka dhigi karaa. Look, kadib waxaan dhigaa I draw taana color-ka doornaa. Waa tagaya round ka dhigaa. Qaybtan waa qayb ayada meesha ku samaysan. Haddii rabo sidaas ka dhigaya, wax walba ka dhigi kartaa. Midab nooc kasta ka dhigi kartaa. wax dhib badan ma ujeedaan. Okay, laakiin round ka saaraba kadib waxaa ku qoraya meeshan. For example, waxaa ku qoraya contact us camal. Contact us. midabka waxaa ka bedeshaa farta, colorka white ka dhig, fartana bedel magaceeda ka bedel meesha, kadibna fartana zaaid oo weynay. kadib contact us sidaas ayuu u qaatay. Okay, meelaha lagala soo xiriirayay iyo wixii contactigaaga inta ku qoraysan. Okay, for example, waxaa ku qoraya sida inii sheegay text ma ku dhufatid waa inaad jiitaan meesha wax ku qoranaysid. waa inaad calaamadaysataa. kadib la qoray tell tell 06 also phone number and waxaa kasoo qada email 2 dhibcood higsi. sidoo kale focus adiga wixii wal isku laakiin waxa u baahan tahay waxa loo icons inaad sameysid oo icons keentid because icons waxay qurxiyaan laakiin hadda icons ma galay baabkooda because of waxaan diidayaa inay waqtiga lumiyaan. waxaan moodaa inay qaybta kala gashay fartana sidoo kale waa ka bedelayaa. For example, I drop taadana farta noocan rabaa leh. Okay, farta waxaa moodaa inay isku mid noqotay. dib kuwana bold ka qaadaya rectangle saaraya. Okay, inta maadaama contact tags aan ku qoray rectangle tool ka soo qaadaya. inta waxa soo dhiganaya ama meeshan waxa ku qoraya anywhere everywhere anytime everywhere anytime everywhere mar walba iyo meel walba oo kale. kadib waa weyninayaa sida taas oo kale ee u weyninayaa tii hore oo kale. so 7 maybe inay weynaatay ka dhig 40. then banaanka usoo saar qaybta bidixdii waxyar kor u qaad. look okay, aniga marka saan wax yeelayo maahan wax oo design oo rasmi aan sameynayo. design-kan waxaa waaye waxa kusay intaan in lagu sameyn karo rectangle leaflet in lagu sameyn karo Adobe design oo waliba ayada ugu wanaagsan tahay wax lagu sameeyo. then waxyar ay dhiman waxaa waaye page-ka kale iyo qaybtan hoose inaan wax ku qoro. qaybtan hoose saa idin sheegaba inta ka hooseyso wareegas badan inay go'da laga yaabaa, laakiin halkan ayaa isticmaalaya aniga. waxyar weli opacity-ga ayaan ka yareynayaa. yes, then waxaa sameynayaa inta imaanaya
magacayga oo kale ayaa ku qoraya, kadib hers because wax badan oo aan ku qoro mahayo, yani markaas wax u yeelayo wax oo aad diyaarsado oo aan ku qoro oo aan design gareynayo ma jirto. So magacayga iyo taasaaba iiga kheyr badan. Marka design markaad sameynaysid simple aa laga dhigtaa, haddaad simple ka dhigi weyso asna simple kaa dhiganayo, waa inaad fududeysataa adi oo wax fudud aa ka dhigataa. For example farta waxaa ka dhigay 80. Okay, waan gartay. weli farta color ka bedel, color ee kusoo baxaysa ka dhig. Okay, intana qoraal yar ku qoraya, sida follow me facebook.com/hexitech, youtube.com/hexitech. intaas markaa ku qorto fartaan oo kale waa weyneynayaa, fartan waa bedelayaa, qaybta koowaad bold ka dhig, kuwan italiga ka qaaday waxaa ka dhigtaa rectangular, then inta markaad sameysid soo dhaweyso. follow me-da waxaa u yeeshaa, waxaa kor saartaa rectangle toolka send it to the back dheh, colorkana ka bedel, asna waxaa ka dhigtaa wareeg, colorkiisana waxaa ka dhigtaa maadaama rectangle tool yahay white. balse farta followga bold. then inta markaad sameysid page kale, ani hadda waxaa sameynaya waa ku copy-naya oo kale, waa ka right waa highlight gareynaya, kadibna waa copy-naya inta soo dhigaya. sababta saas u sameynaya waxaa waqti badan uma aha inaa loo in aad sameeyo. so marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad sameysid waxa la dhaho design. markaad sameysid labada design inay isku mid noqonin oo kala duwanaadaan, kadibna warqad saas kugu daabacee isku saysay noqonaya. marka hadhow daabacdid meesha aragtaa ka laabi karta. waxaan rajeynayaa in designkan aad ujeedaan aad ku qanacdeen, Adobe InDesign aad si fiican u isticmaali doontaan haddii alla idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. share iyo like iyo comment ha hilmaamin weligaa. waa idin salaamin.